Ciidanka booliska ee magaalada Kismaayo ayaa gacanta ku soo dhigay nin shacab ah oo hooyadii gowracay. Ciidanka ammaanka ee magaalada Kismaayo ee Jubbaland ayaa gacanta ku soo dhigay nin shacab ah oo maanta hooyadii ku gowracay isaga oo adeegsanaya mindi xaafadda Farjano ee magaalada Kismaayo. Hooyadan oo lagu magacaabo Xaliima Xasan Cumar ayaa ku geeriyootay isbitaalka magaalada Kismaayo halkaasi oo dhaawac ahaan loo geeyay. Dadka deriska ah ayaa la sheegay in ay ku soo baxeen dhacdadan kadib markii ay maqleen qaylada hooyada waxayna isla markiiba ka badbaadiyeen hooyada oo dhaawac ah iyagoo ula cararay isbitaalka halkaasi oo wax yar kadib ay ku geeriyootay. Xasan Cabdullaahi Cabdi Shire oo 37 jir ah ayuu boolisku sheegay in dhawaan hooyadii ay ka keentay qurbaha si loogu sameeyo dhaqan celin. Booliska ayaa falkan ku tilmaamay mid fool xun oo aan nuuciisa horey uga dhicin magaalada Kismaayo, waxayna sheegeen in gacan ku dhiglaha la horgeyn doono sharciga. Gacan ku dhiglaha hooyadii bireeyay oo gurigii ay wada deganaayeen inta hoos ka soo xirtay ku dhex bireeyay. Waxaa nagu soo wargeliyay shacabka inaan soo qabanno ninkan, ayuu yiri sarkaal ka tirsan ciidanka booliska. Dhacdadan ayaa aad looga hadalhayaa magaalada Kismaayo.